daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oon safar ku tagi doonaa qaaradda Yurub annagoo usii gudbi doonaa waddan yar oo qani ah. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena kusoo dhawaaw daawade oo subscribe noo saar, mahadsanid. weligaa ma maqashay waddan dhan oo ay caasimadda Soomaaliya Muqdisho ay ka weyn tahay 43 jeer, balse xagga dhaqaalaha aad iyo aad ugu sarreeya oo la sheego celcelis ahaan sanadkii qofka waddankaas jooga ay soo marto 170,000 oo doolarka Mareykanka ah. Kusoo dhawaada waddanka Monaco oo inteena badan ay u marin jireen magaalo ka tirsan dalka Faransiiska. Kusoo dhawaada taariikhdii kooban. Monaco waa dal aad u yar oo ku yaalo xeebta Mediterranean-ka, gaar ahaan koonfurta Faransiiska. Waa dalka labaad ee ugu yar dunida kadib Vatican City oo muuqaal ka sameyn doona, isagoo dhul ahaan qiyaastii ku fadhiyo 2.1 kiiloomitir square ah oo keliya. Caasimadda rasmiga ah waa Monaco, balse inta badan waxaa loo yaqaanaa Monte Carlo. Aan dib u laabanay qarnigii 6aad. Deegaanka waxaa degnaa filosofaradii Greega. Qarniyo badan kadib wuxuu galay gacmo boqortooyo kala duwan oo qaaradda Yurub ka talin jiray. Markii la soo gaaray qarnigii 14aad, sanadka markuu ahaa 1297, nin la yiraahdo Francisco Grimaldi ayaa si xeelad ah ku qabsaday qalcadda Monaco. Tan iyo waqtigaas, qoyska Grimaldo ayaa noqday madaxda Monaco. Qarniyo badan, Monaco wuxuu xiriir dhow la lahaa Faransiiska, mararka qaarna wuxuu galay oo hoostagay siyaasadda Faransiiska. Heshiiskii dhacay 1861 wuxuu Monaco u aqoonsaday dal madax bannaan, laakiin Faransiiska wuxuu hayaa difaaca iyo siyaasadda dibadda ah oo waddankaasi Monaco. Celcelis ahaan dadka Monaco waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 40,000 oo qof, inkastoo in ka badan kala bar ay yihiin ajaanib aan dhalad lahayn. Waa dal aad u yar celcelis ahaan, nolosha waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dunida. Waxaa hadda talada haya amiir loo yaqaano Prince Albert II oo ka tirsan qabiilka Grimaldo oon sidiisa hore usoo sheegnay. Monaco dadka ku nool waxay leeyihiin dhaqan isku dhafan oo ah Faransiis iyo Talyaani isku jir ah, maadaama uu ku dhex yeelo labada dal dhexdood. Luqadda rasmiga ah waa Faransiis, laakiin dadka badan waxay ku hadlaan Ingiriis iyo Talyaani. Waxaa lagu yaqaanaa xeebaha quruxda badan, dhismooyinka casriga ah iyo badweynta buluugga ah ee Mediterranean-ka. Waa su'aal isweydiin leh, maxaa ka dhigay Monaco mid caan ah? Jawaabtu waxay tahay waxaa ka dhigay lacagta, raaxada iyo canshuur la'aanta. Halka dadka degan ma bixiyaan canshuurta dakhliga, taasoo soo jiidatay taajiriin badan. Monaco sidoo kale waa hoyga Formula 1 Grand Prix oo ah tartanka gaarida oo ka dhaca waddooyinka magaaladaas oo soo jiitay malaayiin daawadayaal ah. Monaco waa dal yar oo aan lahayn canshuur bixis. Muuqaalkeena maanta waa naga intaa. Ha iloobin inaad like noo saarto, subscribe noo saarto si aad u hesho dokumentariyo kale oo xiiso leh.
daawadayaal aan wax yar isxasuusanay daawadayaal maahan markii aan soo gudbinayna muuqaalada noocan ah si aan u haligno dhalinyaradeenna maanta joogto balse waa xog aan ku ogaanayno dunida si aan annagana u horumarno. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato dalka Soomaaliya kheyraadka yeelo oo aan laga helin hataa wadamada caanka ah oo lacagta leh waad yaabi balse waxay leeyihiin wax ka faa'iideysto. waxaa loo baahan yahay inaan u sabarno sida qoyska Grimaldi ay ugu sabreen qarniyo ka hor kadibna ay u heleen wadanka ugu yar oo dhaqaalaha badan. muuqaalkeena maanta waa naga inta mahadsanidin.